lidinkaga sheekeynayo waa ka warhaysaan xaaladda uu dalka soo maray marxaladaha kala duwan uu soo maray isqabqabsigii faraha badnaa maanta oo 25 waa maalintii dagaalka ka dhici lahaa Muqdisho hadda xasuusataan oo muddo kororsigii February la kororsaday dagaalkii dhici lahaa maanta kale oo ahaa hadda xasuusataan oo dalka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka badbaadiyay runtii dadku waxay dhahan roob la saan u sabab ah may shacabka Soomaaliyeed waa shacab Ilaahay uu leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala badbaadsada dalkan wax badan la isku dayay ajnabi Soomaali inay dalkan qarka tuuraan iyagoo eeganaya dana gaar ah marka Allah subxaanahu wa ta'aala oo ummadiisa u naxayo dad masaakiin ah ay shacabka Soomaaliyeed u badan yihiin oo la rabay in la qaxiyo la dhibaateeyo gaajo u baadaan iyo ducadiina shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo oo u duceynaya inuu dalkooda iyo dadkooda Ilaahay u badbaadiyo saadarteed waxaan anaga sunnadii waxa waa Allah subxaanahu wa ta'aala ayaan sameeynaa maahane wax kale ma dheerin dadka aqoon ma dheerin karti ma dheerin geesinimo ma dheerin wadannimo dadka kale ma dheerin kaliya waxa uu Ilaahay dadkiisa ku ilaashanay kaliya oo anaga noo soo adeejiyo horta taas ogaada waa runtii waxa laga yaabaa dadkii maskaxdiina inay ku jirto dalka labada nin oo u sareysa iyo maxay arintan u xalin laayihiin iyo waa run waayo waxa dalka Soomaaliya baabi'iyay waa dana gaar ah ama shakhsi ahaado ama shakhsi ka dambeeya ahaado maanta leedin kaga sheekeynayo waxa dhacayo oo sida darandoorigu u dhacayo waa wax cadeyntooda aad haysaan oo leedin kaga sheekeynin cidda waxa falayso meesha loo socdo cidda hortaagan isku dayada dib u dhaca lagu sameeynayo cidda sameynayso laakiin Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuuna barayaa dariiqa ay ku istaagayso oo ah inuu dariiq adag yahay laakiin waa wada guuleysanaynaa insha Allah waxaan wadanka xoroobay oo hadda ay dawladnimada noo soo caraftay qamiistii hore ee 14 bishii markii xildhibaanada la dhaariyay ayuu dalka wuxuu ka baxay hubanti la'aantii uu ku jiray oo wuxuu helay hay'ad sharciyeysan oo ah hay'adda ugu sareysa dalka oo loo dhaariyay xildhibaanadeedii haddana waxaa berri la dhaarinayaa guddoonkii iyo aqalka sare waxa ku xiga berri dambe hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala kii golaha shacabka marka kadib ayaa waxaa la rabaa in madaxweynihii la doorto way fiican tahay saansaanta socoto shalay iyo maanta iyo daraad iyo tartanada xoogan oo internetka ka socdo hebel la amaanayo hebelka la sii amaanayo guddoonkii iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo waa sansaan wanaagsan oo dalka u horseedayso in oo maxaa la yiraahdaa uu helo nidaam waana astaan fiican runtii waxaan ku xigto hadii Allah subxaanahu wa ta'aala uu idmo 27 guddoonka la helo oo aqalka golaha shacabka runta idin sheegaya hadii guddoomiyaashaas noqdaan dad sax ah oo xaq ku taagan oo sharciga ilaalinayo oo san hadhow madaxweynaha meeshuu u leexiyo ama hantida la soo dhacay wax laga siinayo la leexdaan dalkaas horumar gaari maayo waxa la rabaa guddoomiyaha la dooran doono berri oo aqalka sare rag baa hadda u tartamayo kii Ilaahay oo garto kulligood saaxiibaan lahay saddexdooda la soo wada shaqeeyay saddex umaleyn inta tartamayso saddexda waa la soo shaqeeyay in loo duceeyo kii maadana Ilaahay looga baryo inuu xaq maro kan 27 arbacada Soomaan la dooranayna waa rag fara badan tiradooda kor kama xasuustay laakiin waa muhiim way inay dastuurkaas ka shaqeeyaan oo ay dhameystiraan dalka doorasho hal qof hal cod waa la sameyn karaa waxaan la sameyn karin malahan inay dalka galiyaan doorashadaas dastuurka ay dhameystiraan dastuurkaas wuxuu muhiim noogu yahay wuxuu kala saarayaa awoodaha oo fulinta madaxa iyo sharci dejinta haddii saddexdoodaas la kala garan waayo cidda iska leh howlaha waxa way wadankan afi dabo isaga xirnaanaya marka Ilaahay laga baryo in guddoon fiican la doorto guddoonkaas fiican hadduu noqdo qof Ilaahay ka cabsanayo oo saliim ah oo saalix ah oo wanaagsan waa wada badbaadayna laakiin hadduu noqdo nin madaxweynaha mustaqbalka soo socdo ku shaqeysan doono dalka isla meeshii aadaya annagana habaaran daba dhigayna habaarka hadduu daba galana waxa waa la wada baaba'aya marka waxaan leeyahay xildhibaanada fi hafiirinina qabiilka hafiirinina kan idin dhow waxaad fiirisaan yaa badbaadin kara